waxaanu maanta halkaysu soo taagnay inaannu baaq diro ku saabsan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Fadhigaab waxaynu ognahay in muddo badan deegaanka Ceelafweyn iyo deegaanka Fadhigaab muddo kooban ahaa colaadda ay xilliyo kala duwan ka dhacday colaadaha waxaan khasaare naf iyo maal ahayn laga kororsaday inaanay jirin waxaanu baaq u diraynaa dadka reer Fadhigaab ee shalayta colaadda cusub ee ay ku dhex martay iyo 2 wiil ka hor shaqaaqa ka dhacday marka hore wixii wax ku gaadheen waanu ka tacsiideynaynaa wixii caqli qabana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo nabadda ku soo noqdo oo colaadda joojiye waxaanu cambaaraynaynaa wax laale wixii ka taliyey in dhibaatayntaa leega ay dhacdo nafa ku baxaan ku dhaawacmaan dhul ku gubto aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa taariikh badan bay soo martay colaadda Ceelafweyn iyo intii koobneed hore ee Fadhigaab xukuumaddu juhdi badan bay gelisay sidii ay u soo afjari lahayd waxaa ka qayb galay dad fara badan oo shacaba guurti aqoon-yahan culimo cid walba way ka qayb gashay waxay nala jiitantay mar walba iyadoo dib u furanta nabadda maanta ay ku fadhiyaan labada arday hore waxay guntantay markii labadii arday iyagu ay wada fadhiisteen waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go'aan dawladeed oo ah colaadda maanta Fadhigaab ka soo cusboonaatay waxaa lagu gelayaa cudud dawladeed waxaana mas'uuliyadda nabadda qaadaysa xukuumadda qaadaysa cid allaale cidii kale wax ka taraysa ha ku taageerto xukuumadda dadaalkeeda laakiin maanta cid kale loo dirayaa ma jiro aan ahayn xukuumadda hadday ciidan tahay iyo hadday wasiir tahay taasaanu ku wargelinaynaa cid kasta in rag ku tashado nin ma odhan kari waayo Soomaalidu tiraahdaa taladii ka soo baxday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta shirkii dhacay degdeg ah emergency-ga ah markii la rogrogay talada waxay noqotay boo ku taala Soomaaliland aaga Ceelafweyn iyo Fadhigaab iyo Dararweyne iyo inay wax ka dhici jireen wixii ka dhacayay dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay 5 sanadood ee ugu dambeeyay boog bay ku noqotay Soomaaliland waxay noqotay wax qarankan dibindaabiyo iyo magac xumo iyo dhimasho iyo khasaare naf iyo maalba ah oo maalin walba taagan maadaama ay naftoodina u tudhi waayeen nafaha kale ee reer Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland u tudhi waayeen xukuumaddu waxay go'aansatay sida wasiirku sheegay in gacan bir ah wax laga qabto inaan naxariis dambe loo gelin mar haday tashan kari waayeen in loo taliyo culimaan la isugu yeedhayn uquul kalaan la isugu yeedhayn kharash dambaan lagu gelayn waxaankaas waxaanu gaarsiinaynaa dadka wanaagga jecel reer Soomaaliland dhagtu taagan tahay inay xukuumadda go'aanka qaraar qaadatay laguna taageero wixii wanaagga iyo dadnimada iyo islaamnimada jecel inay ku taageeraan waxay Soomaalidu ku mahmahdaa dab munaafiqshiday muumin baa ku gubta loo aabayeeli maayo oo naxariistii hore ma jirto oo kana sharaf leh iyo kana magac leh iyo kana cayn kana ma jirto waxa weeyaan mar haddii ay 5 sanadood muddo ku dhow imaka waxaas rafanayeen waa loo talinayaa mid guda ku nool iyo mid dibad ku noolba in xukuumadda la isku barbartaaga arrinta oo aan xal kale loo haynin ayaanu idin